بسم الله الرحمن الرحيم وديغان كمبريشو وكدو كلميه halkan maanta waxa jooga Suldaan Saciid Cali oo lagu marti qaaday goobtan aad arkaysaan waxa jooga dadweyne tiro badan Okay. halkani waa Midhisho sida aragteen wadayeel badan ayaa halkan jooga waxa ugu horeeyay Suldaan Saciid Cali oo booqasho ku yimid deegaanka halkan maanta lagu marti qaaday hadal kooban ayuu halkan ka jeedin doonaa oo ka daawan doontaan dhammaan dadka dibadaha jooga iyo kuwa gudaha Suldaan ku soo dhaw bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam halkan aan joogna waxa weeye Midhisho waxaana nagu casumay dad ehel ah oo degan mandaqada aad baan ugu mahadnaqayaa martiqaadka qiimaha leh aad iyo aad u qiimo badan ee halkan lagu marti qaaday waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa dadkii casuumadda lahaa ee nagu casumay iyo inta shaqeynaysa iyo maxaan ku yiraahdaa inta joogta iyo inta ka soo qayb gashaba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waan ugu bogaadinayaa waan u ducaynayaa Ilaahay khayr ha siiyo khayr baynu Ilaahay ka rajaynaynaa Ilaahay khayr siiyo qiimo badan intaasaan ugu dhawahay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh mahadsanid Suldaan Saciid Cali sidoo kale dhinaca kale waxa fadhiya Nabadoon Cabdiraxmaan Xasan Ducaale Nabadoon maxay inta ku daraysaa bismillahir rahmanir rahim marka hore waxaan salaamayaa dadka sharafta badan ee ehelka mudane iyo marwaba dadka casuumadda sameeyay iyo togankan waxa weeyaan tog qadiimi oo soo jireena oo u jira ilaa 25 kiiloomitir buu u jira magaalada Ceergaabo kagana toosan yahay dhinaca waqooyiga sidaa daraadeed togankan waxa weeye waa soo jireen ilaa hal qarni baa yani magarasa la soo isticmaalayay oo u ahaa tog la intifaacsado oo wax waliba ka baxaan sidaa daraadeed dadka joogaana waa dad soo jireen oo xadaarada iyo ilbaxnimadooda iyo yani hadii dadnimadooda aad iyo aad u sareysa oo qiimo badan tahay sida meesha ka muuqata dhirtan imanka maartay ku taala waxa weeyaan sonkortii saytuunkii muuskii cambihii babayga ahaa iyo qudaartii ay ku nooc baa ka baxa dadkuna waa dad dadaal badan oo shaqo badan marka waxaan leeyahay inta meesha joogta dhammaan ahaan Soomaalida waxay tiraahdaa ay ku maahmaadaan
dee ninba tacabkii togay kaa maal waa dad tabcada oo shaqeeya sidaa daraaddeed in gacan ay siiso oo dawladda lafteedu eegto dhulka halbowlaha wax lagu tilmaami jiray waayadii hore anigu kanaan ku dhashay oo togan gudihiisaan ku dhashay togu marka waxa weeyaan tog qadiimiya waxaan leeyahay dawladduna inay somalilan annagoo u mahadnaqayna madaxweynaha somalilan axmed maxamuud siilaanyo waxaan leenahay ma garanaysaa in la eego oo togan lafsi ahaantiisa ma garanaysaa waa tog qadiimi webiga saddexaad baa lagu tilmaamaa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay xaggaa lafsi ahaanteeda wixii ay u qaban karaan iyaga laftoodu in aad iyo aad maaragtay loo soo jalleeca oo horumarkooda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yaa intaa ku daraya wax كله okay ya هذا فقدر ما بيودي beeri baa dhalay ka qaadi waxaan ku daray